شن بقولها شك marka waaba yaa inta iyo harsan inta ay dirtay marka laga reebo hadda ani haddaan daahir waa saaxiibkay ma ogta halkan uu degan yahay bareedu degan yahay haddaan gaari ka haysto u tago gurigiisa leef ka soo wada geli karnaa haddaan wuxuu iraahdo nin hawshaas jirtay leefka ii soo gal inaan dhaho kun baan ku hayaa ama 500 baan ku hayaa de waxa dadnimo ku jirta inaan dhaho ninka aanu xagee ka socdaay isagana taasu yeelaya laakiin 5 baan ku hayaa ama kun baan ku hayaa waa wax rag la waxa aan soo tagnaa marka waa kaase adiga aan tahay ma jeceshay raga ana ku hawlgaliya 10 nin oo ugu culus dadka farmaajo iyo khayriya kaga oosiyaan iyo baadan adi maxaa saad qudon muxuu yahay wala xilka laga diiranaya door cade rabo in meesha la qabto la rabshadeeyo hotelka laftigiisa macnaa dad gudaha la soo geliyo calamo la soo sameeyay qalbi dhagax iyo waxaas habeen markii daahir loo tagay loo geeyay waxa la orod hawshaana jooji oran iska soo caalibir 30 inta la siiyay وانا aniga shalay aan ku sheegay waani ku yiri solo waa saaxiibkay solo waa naga mid waa dadka wax iskaga shaqaysta dadka adiga hadda saa u sheegayso waxa uu oga waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in lacagta iyo kala caradhay marka waa la fahansiinaya saadiq joona kana ka cabanayso oo dokumentiga bixinaya oo ku soo xiray oo laalifka kala doonaya isaga inuu lacagta hayo loo sheegaya dadka meesha ay muqdisho hargeysa aadayna leeyihiin iyo hargeysa ku soo lugo in guriga saadiq joon baa hor istaagaya war ja wasasi marka waa kaase adiga aan tahay ma jeceshay raga ana ku hawlgaliya 10 nin oo ugu culus dadka farmaajo iyo khayriya kaga oosiyaan iyo baadan adi maxaa saad qudon muxuu yahay wala xilka laga diiranaya door cade war nuka soo wallahi bilaani waxa laga qeyriyay kul boorto nuka oo qeyriyay horta iman inay yihiin wax weeyaan xiniiraniyo wadan dimuqraadi ah joogo afaarada la soo gali karaniyo kula wacno wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa hami media aniguna waa saaxiibka Soomaalida Asjaani ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka maanta waxa uu ku saabsan yahay cod sir ah oo laga duubay Shiino Culey oo ah YouTuber caan ah kaasoo baraha bulshada caanka waxaana codkaas sirta ka duubay managerkii ama milkiilihii shirkadda Future Traders Company ee Muqdisho taa oo lacagaheedii in badan la isku haystay in la dhacay ama ay ku maqan tahay jeebka milkiilaha Maxamed Cawaale oo iminka ku sugan Hargeysa halkaasna ku aqal galay dhawaan haddaba sheeko dhex martay ayuu cod ka duubay Maxamed Cawaale Liibaan asagoo ku soo faafiyay bartiisa Facebook oo ku leeyahay haddaba sirtaan ayaan ku soo bandhigi doonaa barnaamijkeenan hadday tahay booqashadaadii u horeeyay halkan ha hilmaamin channelka inaad subscribe saarato videogana like saar asxaabtaadana sii gaarsii mahadsanid waxa cod laga duubay Shiino Culey oo ah YouTuber caan ah oo kamid ah dadka baraha bulshada ugu caansan Soomaalida waxaana codkaas sirta ka duubay Maxamed Cawaale Liibaan ka oo ah milkiilihii Future Traders Company haddaba codka laga duubay aan wada daawan soo maqlaysid marka iyagu maxaa farqi ugu qabanaya la hawsha lacagtu isleegihiin lacagtu isleekada way hawshu moogta adu wadada wuxuu qabtay dawaa qabtay waa already waa qabtay already waa qabtay marka wardad baa 10 iyo 20 waxa data oo la iska siyaado qofka waxa wajiga isu haysaan iyo shaqada u qabanayso iyo qofku sidoo wuxuu hayo waxyaabo badan ku xiran tahay ma ogtahay marka adiga habciidsan 10 lacag la siinaayo dadkan hadda ani haddaan daahir waa saaxiibkay ma ogtahay waa halkan uu degan yahay bareedu degan yahay haddaan gaari ka haysto u tago gurigiisa leef ka soo wada geli karnaa haddaan wuxuu iraahdo nin hawshaas jirtay leefka ii soo gal inaan dhaho kun baan ku hayaa ama 500 baan ku hayaa de waxa dadnimo ku jirta inaan dhaho ninka aanu xagee ka socdaay isagana taasu yeelaya laakiin 5 baan ku hayaa ama kun baan ku hayaa waa wax rag la waxa aan soo tagnaa marka waa ka adiga ninkaana aan sugno aniga waxaan ku sheegayaa hadii aan nimanka rabtid gabigaaga waa lagu dhaqayaa ka saliim iyaga macna eedaa dhan dadka lacagta leh oo hadda leeyahay Muqdisho u socdaan adigu doonaya maaragtay xafiiskiisa aan horistaagina laba kala jirta moogta laba kala jirta hadda waxaan inagu aan waajahayno warta waa wax reality ah weeyaan aniga hadda waxaan rabaa oo kaliya in la baahiyo si xujireen bisoo kaliya moogta nina waxa weeye nin wax lagu helay oo balaayade wixii iska masabidayo oo moogtahay cibka saliim laga dhigayo moogta
waas marka labaad tolnimo iyo de nin lacag ka xayran tahay oo la soo baabiyay oo waxa weeye la soo caydsaday wad dareemi kartaa moogta laftarkeeda say sheegayso de waxa weeye waa say sheegayso waa roo kartaa de warniyow anu ninkaas xalay ka socdaa dad dilmi weeyaan de ugu hiiriyay intaas uun ninka garanayna de waa oranaya oo taas mar walbaba waa oranaya nin adeerkay waa kaasaya oo dhibta loo geystay oo bahalkii oo mar walba waa ugu daraya oo waa oranaya oo hadaan ugu darin ma aragtay si daacada xataa wax lagu qaban maayo moogta ama haddii xataa si daacada aan wax lagu qaban inta lacagta layna ka qaato baa hadhowdiina mid kale lacag ka qaadanaya markaasuu dhinaca kale inuu ku lugayaa laakiin warninkaas shiina xagiisu ku socdaa hadhow oranaya marka adiga waxa weeye dadkaas hadda la leeyahay waa ku soo doonayaan ama adiga ku tuhumaya oo sida wuxuu jiraan aan maaragtay mararka qaarkood waxa Soomaalidu tiraahdaa guntuxmadaada waxa la moodaa inaad tuugtahay guntuxmadaada adoo tuug ahayn de dadka adiga hadda saa u sheegayso waxa uu oga waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in lacagta iyo kala cararnay marka waa la fahansiinaya Saadiq Joona kana ka cabanayso oo dokumentiga bixinaya oo ku soo xiray oo laalishka kala doonaya isaga inuu lacagta hayo loo sheegaya dadka meesha ay Muqdisho Hargeysa aadayna leeyihiin iyagoo Hargeysa ku soo lugo in guriga Saadiq Joon hor istaagaya wasaasi marka waa kaasi adiga aan tahay ma jeceshahay raga ana ku hawlgaliya 10 nin oo ugu culus dadka farmaajo iyo khayriya kaga oosiyaan oo baadan adi maxaa Saadiq Joon wuxuu yahay wallahi xilka laga diiranaya door cade war ninka soo wadaa wallahi bilaani wuxuu laga qeyrayay kul boorto ninka uu qeyrey horta iman inay yihiin wax weeyaan xneeraniyo wadan dimuqraadi ah joogo afaarada la soo gali karaniyo codkooda meel ay soo gali karaan farmaajo wuxuu yimi meesha la yiraahdo Brussels bimi 2018 bishii June daahir ala soo hotel la yiraahdo the hotel ku tagay aniga hotelka deganaa سان اسكت تاعو يا هوتيل في دجي وهاي داير على سو شنقف وتبع هوتيل كشو تغو يمي هوتيل ما حقنا دغيسو marka علي يري waa la socday mudaharaadii rabeen inay qabtaan oo maaragtay hoteelkii madaxweynuhu degan yahay ilaa online ka laga buukan gareysanaya cid ku diidaysa ma leeyahay mudaharaadii farmaajo wuxuu rabay inuu xaflad dadka kula hadlo marka mudaharaad rabay in meesha la qabto la rabshadeeyo hoteelka laftigiisa macnaa dad gudaha la soo galiyo calamo la soo sameeyay qalbi dhagax iyo waxaas habeen markii daahir loo tagay loo geeyay waxa la orod hawshaan jooji oran iska soo caalibay 30 inta la siiyay ilaahi miyaadan aqoon waa ilaahu aan diinta ka baxba ku teed inta la siiyay baa hawshaan jooji maca salaama وإيه ميل بقى وضع قضيني وحاجة وقت وتجي يا مع السلامة دارو أول فرماجو حاجة وكقارن جل مركا مركا أنا إنه وحاس أول بكرة ما أنا ألعبه سيدي بقى من حوالي حفلة دي وقبصون سيد شرف لي مركا ساعة حاجة جوغانيو والله بالله طلع وعاو كوني قصة حنوش شكت والله بالله إيه وأنا قشلي أكو شيء وأنا كويري سولو وصاحبكي سولو وأنا جميل wadadka waxa iskaga shaqeysta ani waa dareemaya solo in hawdirin aniga xataa shalay waani ku lahaa ina kala hadlo ma rabo micnaha waxba ku sii fogeynaysaa waxaan baraha bulshada waxaan soo galay deyntii ani hawshan ugu dhacday moog nin barbisho marka ma ahayn dad profilka ta Facebook dad gasho waa ka karaysaa oo nin barbisho ma baxiya صح marka laakiin ninkaasi waa nin dawlad away $1,000 waa lacag ciyaar ma waa nin dawlad waxa weeyaan haystay dad hantoodu idisiin ninkaas aniga hadda aniga hadda kuma oran macnaha qoto macnaha ragii soo kuma orane macnaha waxa meeshta waxa lagu qaato ilaahay abuurtay waan ku dhaartay anoo hurdo habeen aan gurigayga la keenay daahna loo muddo bilow halka ka qaylnaa ala siiday marka waxa kaaga soo wadaa 10,000 waa ku qaatay aniga 10 isku xiran waa ku qaatay wallahi waxaan filayaa in sir badan halkaas ku fashilantay oo laga wanaagsanay in la faafiyo hase ahaatee waa la faafiyay aad ayaan uga tacsiyadeynaa arintii qabsatay Shiina Culey odaygii Soomaaliyeed
waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalka xiga intaa ku kulmeyno waa saaxiibka Soomaalida Asjaan oo idin leh nooli kula